macallimiintii iskoodka ee gobolada Awdal iyo Saaxil ee tababarku uga socday muddada 2 sanadooda jaamacadda Amood ayaa maanta imtixaankii ugu dambeysay loogu soo gabagabeeyay dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar waxaana ay tiradoodu dhamayd 120 macallin waxaana ay wax ka dhigaan dugsiyada hoose dhexe ee gobolada Awdal iyo Saaxil munaasabadii xidhitaanka tababarkaasi ugu horeyntii ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Aadan Faarax Maxamuud waxaana uu sheegay in tababarkani ay ka faa'iideysteen aqoon dheeraada macallimiintaasi gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Axmed Cigar Hiraash oo isna ka hadlayay munaasabadaasi ayaa carabka ku dhuftay in aqoonta ay ka barteen jaamacadda Amood ay ku dabaqaan casharada ay u dhigi doonaan ardayda dugsiyada kala duwan ilaa kun loo soo dugsiyada hoose dhexe baa la yidhaha waa isku jir haddii aad ka dhigayso dugsi dhexe waa soo socdaa weli haddii dugsi hoose aad ka dhigaysana wuu soo socdaa weli macnaha waxa weeye aasaaskii idinka haya waxa kale oo had iyo jeer ka sheega maamulayaal haddii ku jiraan halkan waxaan fari lahaa ardayda iskuulada ku jirta in standardkooda loo oggolaado hormoodka kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda Amood Professor Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa sheegay in tababarkaasi muddo dheer uga socday jaamacadda Amood wax badanna ay faa'iideysteen muddadii ay ku jireen tababarkaasi iyo in koolamada ku jirta Hargeysa iyo in koolamada joogta Furco iyo in koolamada joogta Lascaanood dhammaantood fursadaasi lagu xiriyo marka waa suurto gashay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ayaa suurto geliyay maxadana marka kuwa isaga ayaa iskale marka labaadna cidaasi way toogtay marka saddexaad waxa weeyaan jaamacaduhu waxay mas'uul ka noqdeen marka ay tababarka ku celiyaan isagoo wali muddadu ay aad iyo aad u kooban tahay oo gurigeedu ay ahayd waxa weeyaan 3 week xogayaha gobolka Awdal Cabdilaahi Xuseen Aare oo ka hadlayay isla munaasabadaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in si iskaashi leh ay hawsha u qabtaan macallimiinta kala duwan ee tababarka dhamaystay waa Caafi Boorama.